السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamida barnaamijyada aan idinku talagalnay waa barnaamijkeeni ugu horeeyay maanta oo jimcaha mar kale waxaan idin leeyahay jimca mubaarak taariikhdu waxay ku beegan tahay 14 bisha Agoosto sanadka 2026 haddaba barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaynaa wararkii ugu waaweynaa ee ka soo kordhay xaaladda gobolka bariga dhexe xoutiyiinta oo saacadihii la soo dhaafay weeraray xarunta shidaalka ee shirkadda Aramco ee Jizan dhanka kale Iran oo iyaduna nagta ka saartay laba markab oo Imaaraadku leeyahay saacadihii la soo dhaafay kuwaasoo dhagaha ka furaystay baaqyada Iran iskuna dayay inay maraan marinbiyoodka Hormuz Sacuudiga iyo dowladaha khaliijka oo si kulul u cambaareeyay arrintaas Mareykanka oo markab weyn oo leeyahay George Washington u diraya bariga dhexe kadib maraakiibtii hore halka u joogtay markii ay wax ka qaban waayeen weerarada Iran ee xirnaanshiyaha marinbiyoodka Hormuz qodobadaas aynu ku soo qaadanaynaa barnaamijkeena inta aan ku jirnana wixii warar soo kordha waan idin la socodsiin doonaa kulanti wanaagsan mar kale asxaabay meel kastoo naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena ugu horeeya maanta jimcaha waxaan idin leeyahay jimca mubaarak taariikhdu waa 14 bisha 8 2026 waana barnaamijkii ugu horeeyay maanta jimcaha idin soo gudbanayn haddaba intayna barnaamijyada gelin waxaan idinka cudur daaranayaa maalmahan xogaa shaqooyin kale iyo culaysyo kale ay ugu soo furmay marka barnaamijyadii saddexda ahaa ee aan sameyn jiray qaarkood waa weyseen kow marna laba waxbaan sameynaa saddexdii culays badan naga haysta oo shaqooyin kale ku mashquulsanaay laakiin haddii alla idmo saddexdeenu caadi inoogu soo noqon doonaan sabtida ilaa axadda iyo wixii ka dambeeyay maanta xataa waa suuragal inaan sameyno marka insha Allah kulay culeysyadaas jira la socda laakiin maalinkii laba waa heli doontaan haddii alla idmo culeyskuna iska dhamaan doonaa oo maartay shaqooyin kale iyo waxbaan ku mashquulsanahay hawlaasna way soo dhamaan doonaan marka intaas dadka asxaabtayda ayaan ku wargelinayaa raali ahaada waa wadi doonaa barnaamijyadeena saddexda hadaynaanba ka badin ma joojin doono laakiin xogaa maalmahan dulqaad ugu horeyn marka waxaynu ku bilaabaynaa xoutiyiinta ayaa la sheegay saacadihii la soo dhaafay inay weerar ku qaadeen shirkadda Aramco meel ay leedahay oo shidaalka Sacuudiga lagu sameeyo oo maartay lagu hagaajiyo sifaynta macnaha meelahaas ayaa la weeraray diyaarado drones inta u qaateen ayay xoutiyi Sacuudigu garaaceen haddaba saacadihii la soo dhaafay haddaba aan idin soo jirnada leeyahay Al-Qudus ayaa waxay qoraysaa xoutiyiinta ayaa bartilmaameedsaday goobta sifaynta batroolka ay leedahay shirkadda leeyahay Aramco ee ku taala Jazan waana markii labaad muddo 5 maalmood gudahood ayay leedahay jiradu haddaba jamaacada Ansaarullah xoutiyiinta dalka Yemen ayaa sheegay saacadihii la soo dhaafay inay bartilmaameedsadeen oo ay garaaceen goob shidaalka lagu sifeeyo ay leedahay shirkadda Sacuudiga ee Aramco taasoo ku taala mandiqada ama deegaanka la yiraahdo Jazan ee ku yaala koonfurta Sacuudiga laba diyaaradood oo kuwa daroonka ayaa la sheegay in lagu weeraray goobaha Sacuudiga ee shidaalka haddaba waxaa la sheegay in ay tahay markii labaad muddo 5 maalmood gudahooda weeraradan lagu qaadayo haddaba waxaa la sheegay guud ahaan waa markii saddexaad shirkaddan ay kala kulmayso xoutiyiinta weerar lagu soo qaado goobaha shidaalka ee Sacuudiga ilaa 25 bishii dhamaatay ee Luulyo wakaaladda wararka Yemen ee rasmiga ee yiraahdo Saba ee taageerta kooxda jamaacada Ansaarullah xoutiyiinta dalka Yemen ayaa xaqiijisay goor dhaweyd in weeraradaasi lagu qaaday Sacuudiga kadib markii lagu eedeeyay Sacuudiga in diyaaradihiisu ay ku soo xadgudbeen hawada gobolka Sacda ee dalka Yemen iyo gobolka la yiraahdo Hajja taasoo ay sheegeen xoutiyiintu iyaguna inay kaga jawaabayeen arrinkaas Sacuudiga marka nagta laga saaray nimanka xoutiga la leeyahay niman qoran ma aha isbahaysiyan ku jirnaa Turkiga iyo Pakistan waa idin la dhici doonaa cidii cid soo weerarta waxaas adeero ma qorni taagin
diyaaradahaaga haddaan yaman ku dul aragno kuweena waa ku dul arkay sacuudiga wax meesha maaragtay noo kala yaala ma jiraan marka xuutiga nimanka dee ka baqaaya lagu cabsiin karo isbahaysi turki iyo bakistan iyo waxaas nimankaa maba qoraan nimankaa waxay ka naxayaan malaha lagu leeyay marka sacuudigii nagtay ka saareen waxayna ku eedeeyeen in diyaaradihiisu lagu dul arkay way duqeeyeen maaha weeraray soo qaadeen maaha waxaa lagu dul arkay hawada sacda iyo gobol la yidhaahdo xaja oo yaman ku yaala kadib 2 daroona loo diray meeshii ku xaroodeen marka meeshii qiiqeedii ka cayaala leeyahay saakay xaalku marka sacuudiga halkaas ay maraysaa dhanka kale sacuudiga isaguna shiraa kusoo gabagaboobay shalay isbahaysigii badda ayuu diyaarsanayaa dowladihii wixii oo dhan isku dubaridayaa si ay ula dagaalamaan xuutiga iyo weeraradiisa iyo dhanka badda uu kala dagaalamo dadaalkaasuu wadaa hadda warkii ugu dambeeyay warbaahinta sacuudiga waxay leeyihiin dowladaha aqbalay inay ka qayb galaan isbahaysiga sacuudiga hogaaminayo dhanka badda waxay gaareen ilaa 39 diyaaraan ay dheheen 39 dowladood marka waxaasoo dhan waxay usoo dig iyo dam leeyihiin inay xuuti la dagaalamaan marka xaalku halkaasuu maraya marka baabul mandab ayaduna hawshaasaa ka socota qodobka halkaasaan kaga gudbaynaa sheekada kale ee soo korortay saakay waxay tahay nimankii imaaraadka ahaa ayaa xalay aflabadii qayliyey 2 markab oo aan leenahay ayaa la garaacay 2 markab oo aan leenahay ayaa maaragtay la duqeeyey ayay ku hayaan marka 2 markab ee la duqeeyey maxay ahaayeen 2 markab waxaa la leeyahay waxay iska dhaga tireen hadallada Iiraan oo ah meeshan cid aan Iiraan idimkeeda ama ogolaanshiyeeda haysanin inaysan mari karin idanka Iiraan waxaan ahayn laguma mari karo Iiraan tiri marka nimankan xoogaa way Ameerikaankii waxay iska mar marka waliba xataa Hormuz caadiga ma marayaan oo dhanka Cumaan ayagoo socda ayaa inta la qabtay ayaa si xun loo garaacay haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay arrinkan laga qoray Saudi Arabia ayaa si kulul u cambaareysay in la weeraray 2 kamida maraakiibta shidaalka qaada ee uu leeyahay imaaraadka kuwaasoo marayay marinbiyoodka Hormuz wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudiga war rasmi ah oo ay soo saartay saakay ayay ku sheegtay inay si kulul u cambaareynayso weerarada lagu qaaday maraakiibta shirkadda imaaraadku ay leedahay ee la yiraahdo ADNOC kuwaasoo la sheegay inay isku dayeen inay ka gudbaan marinbiyoodka Hormuz haddaba 2 markab ee leedahay shirkadda ADNOC ee dalka imaaraadka ayaa waxaa la sheegay in si xun loogu xadgudbay oo weerar lagu qaaday haddaba Sacuudigu waxay sheegeen in mas'uuliyadda arrintan ay Iiraan dusha u ridan doonto wixii ka yimaada xadgudubyadan waxayna sidoo kale ugu baaqaysaa oo ay ka codsanaysaa Iiraaniyiintu inay degdeg u joojiyaan weeraradan oo ay ixtiraamaan qawaaniinta caalamiga ah si markaa arrinkan loo qaboojiyo marka luqadda Sacuudiga way adagtaa toos u tilmaamaya Iiraan inay iyadu tahay waxa weerarka qaaday Iiraan inay tahay cidda mas'uuliyadda qaadaysa weerarkaas inay joojiso ilaaliso qawaaniin ma meeshan taal Iiraan waxa la meesha anaa ku habsaday ninaan aniga ogolayna ma mari karo adeer meeshaas warkaas waa cad yahay warkaas ninkii iska dhaga tira nagta ka saaraya Mareykan ay ka celiyo waa Mareykan Soomar hadduu ku dhaw amartid adag ku taala nimankii imaaraadka marka meeshay gabgab ka qaylinayaan haddaba marka khaliijkii oo dhan waa isla qaylinaya waa cambaareennay weerar ka dhacay waa cambaarey ayaga cambaareen bas waa Kuwait maray soo tuure Qatar maray soo tuure Bahrain maray soo tuure iyagu waxay ku filan yihiin waa cambaareennay markabkii imaaraadka la weeraray waa cambaareennay marka Iiraan marka war soo saartay saak markii arrinta aad looga hadlayo markabka Iiraan weerartay la leeyahay Taaraan waxay si cad u sheegtay inay iyadu gacanta ku hayso marinbiyoodka Hormuz waxayna sheegtay in markaa sida ay ku soo waramayso wariyaha telefishinka Al Jazeera ee ku sugan magaalada Taaraan gabadha la yiraahdo Rania Qasimi inay markaa Iiraan si dhammaystiran iyadu ay u maamusho waxayna beenisay wararka sheegaya in Mareykanka uu leeyahay anaa maamula haddaba
mas-uuliyiinta iiraaniyiinta waxay sheegeen markabka inaysan u suurageli karin inuu galo ama ka baxo marinbiyoodka hormus isaga oo aan iiraan ogolaanshiya ka haysan. waxaana arrinkan si rasmiya ugu celiyey saakay la taliyaha aayatullaahiga waddanka iiraan ninka la yidhaahdo maxamed makhbar oo sheegay in maraykanka warkiisa ciddii dhagaysataa oo isku dayda inay halkaa marto ay garaaci doonaan. marka nimankan marka waxay leeyihiin annagu warkeenna waa cad yahay, cidaan annaga u ogolaanin ma mari karto, maraykan anaa haystu leh ha idan marsiiyo. waa kaas marka sheekadaasu ayaduna halkaas ayay maraysaa. waayahay qodobka kale ee ugu dambeeya barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa maraykanka gudihiisa waataan horay barnaamijyadeeda uga sheekeynay abraham lincoln markabka la leeyahay in dhibaato ay la soo diristay oo xataa biyihii nadiifkaa ka dhammaadeen, shaqaalihii dhibaataysay, qoysaskoodu ay mudaaharaadya sameeyeen, ay ku kaceen wasiirka la yidhaahdo wasiirulbaxri ama wasiirka dhanka badda oo ciidamada badda qaabilsan, wixii oo dhan isku kacay. hadda marka waxaa leeyahay markabkii waa la soo wadayaa kadib markii uu maalmo fara badan oo xadkiisa ka baxsan uu shaqo qabanayay. waxaa lagu bedelayaa markab kale oo la yidhaahdo george washingtona tegi doona, kaasaa soo bixi doona. laakiin dadka khubarada waxay leeyihiin maxaa isbedelaya? waxba isma bedelayaan. kuwii hore maxay ka qabteen iiraan ma ka cayriyeen marinbiyoodka hormus ma fureen? markab kasta ha mara ma yidhaahdeen may iiraan weli way xorata xalaa u dambayso maraakiib imaaraadkule nagta ka saarta. marka waxaa leeyahay maraakiibtan waa uun iska joogaan meesha maahane wax naf leh oo dagaalka iiraan ay ka galaan lama arkaa leen. mar walba ay bahashu kululaato mid walba isagaa baqaya, badweynta hindiya ayuu u cararayaa. markii xoogaa bahashu degtana waa soo dhawaanaya meesha la yidhaha baxrul carab, badda carabta meesha la leeyahay ayuu imaanaya. haddaba markaan idin tuso akhbaaraadka ku saabsan markabkan ugu dambeeya. haddaba george washington ayaa wuxuu ku jihaystay ama aaday bariga dhexe. haddaba dhanka kale wasiirka gaashaandhigga ama dagaalka maraykanka ninka la yidhaahdo hexed ayaa isaguna u dhaartay iiraan. haddaba marka aan idin tuso warbixinta way sii socotay. waxaa leeyahay wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in markabka la yidhaahdo george washington uu ku wajahan yahay mandiqada bariga dhexe si uu u bedelo markabkii hore ee diyaaradaha xambaarayay maraykanka ee la yidhaahdo USS abraham lincoln. waxaana la sheegay in ay isbedeli doonaan. haddaba warbixintan waxaa lagu daabacay xalay joornaalka la yidhahdo wall street journal ee kasoo baxa dalka maraykanka oo soo xiganaya mas-uuliyiin maraykan ah. ayaa waxaa la sheegay in markabkan la yidhaahdo george washington uu kasoo shiraacan doono oo uu kasoo tegi doono waddanka jabaan oo uu hadda ku sugan yahay, wuxuuna soo aadi doonaa mandiqada bariga dhexe ayuu soo aadi doonaa. waay marka markabkan wuxuu joogay jabaan oo maraykanku leeyahay, halkaasaa laga amray, waxaa la yidhi waxaa tagtaa bariga dhexe tag. marka halkaasuu kasoo bixi doonaa, leekanna maraykanku toos ugu soo noqon doonaa. waa tii cabaad badan dadku ay sameeyeen oo dhibaato badan ay sameeyeen. barnaamijkaygii ugu horreeyey maanta jimcaha waa naga intaa asxaabay. mar kale waxaan idin xusuusinayaa inaad raalli ahaataan. maalmahan barnaamijyadii saddexda ahaa waxbaa ka kala maqan, waa iska mashquulay oo dee adduun iyo xaalkiisa waa ogtihiin, meel baan ku mashquulsanahay. marka howlahaas way soo dhammaan doonaan ilaa maanta inay dhammaadaan baan rajeynayaa. sabtida iyo xadday wixii ka dambeeya xaalkeenu uu caadi noqdo, barnaamijyada sidooday u socon doonaan, laakiin maalmahan odaga ha lagu qaato. inta aan mar kale kulmayno asxaabay, nabadgelyo.